duni iilatiyo waqti duubanoo tabinada iblays laga daahaybaa dadku taagi daa'ima wallow dirkayaga hago dibadiya dalkaba ku dabaalsamo daadanoo hadee بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada ardayda Soomaaliyeed casharkaygan waxaan rabnaa inaan ku barano sida loo isticmaalo packet tracerka casharadeenii hore waxaan kusoo qaadanay sida loola soo degay ee ugu fudud kana insha Allah waxaan ku baran doonaa sida loo isticmaalo waxaad u jeedaan halkan qalab badan baa yaala oo mid kasta markaad ku dul beegtid uu ku soo baxayo magaciisu sida routerada switchyada hubska iyo fiilooyinka xaggan hoose waxa yaala iyagana kombiyuutaradii iyo cloudki iyo waxyaabahaas dhinacan midigta iyagana waxa yaala iyo waxay qabtaan insha Allah waynu baran doonaa xaggan sarena waa toolski iyo waxyaabahaas waxaan rabnaa inaan dhisano network yar oo basiga aan ku barano sida fiilooyinka la isugu xiro iyo sida cinwaanada loo geliyo oo iska basiga insha Allah waxaan u baahanahay haddaynu xagga kombiyuutarada tagno waxa yaala kombiyuutaro kala duwan laptopyo serveryaal iyo desktop haddaynu soo qaadano marka laba kombiyuutar qaar ka badan waad soo qaadan kartaa waxaanay ku xidhan tahay network aad markaa dhisaysid baaxadda uu leeyahay waxaan u baahanahay hal switch haddaynu switchyada riixno dhinacani waa ka isbedelay waxaa ka soo baxay iminka switchyadii aynu u baahnayn ka doonaysid baad kala soo qaadanaysaa ka 2960 haddaynu soo qaadano oo iska basiga waxaan u baahanahay router oo isagana aynu rabno inaan barano sida loo isticmaalo fiilooyinka lagu xidho ciwaanadana loo geliyo 2621XM ayaa wax badan qabanaya runtii kaasaynu soo qaadanayna insha Allah waxaynu hadda u baahanay waa fiilooyinku way kala duwan yahay fiber optic baa ku jira straight through crossover serial oo aad bay u badan yihiin hadda waxaynu u baahanahay isku xidhkoodii labadan ayaynu rabnaa inaan ka isticmaalno labadani maxay ku kala duwan yihiin waa straight iyo crossover guideline yar baa halkan inoogu qoran sida loo kala isticmaalo halkan waxaad ku aragtaan waa straight through oo qalabka straight through qaata deviceska straight through kugu xidhmaya iyo kuwa crossover ee kugu xidhmayaba waxaan soo aragnay in computer iyo switch aanu isticmaalno straight through fiilada markaad soo qaadid waad ku dul qabanaysaa device-kii aad rabtay inaad ku xidhid clickna waad u raacinaysaa waxa kuu soo baxaya inta interfaces uu leeyahay qalabkaas marka aad rabtid inaad xadhiga ku xidhid hadda kan waxaa laban baa ku yaala kan fast ethernet 0 ayaynu gashanaynaa dhinaca kale switchka ayaynu yana click siinaynaa isna waxa inoo soo baxaya interface-yada uu leeyahay ee bannaan markaa fast ethernet 0/1 ayaynu gashanaynaa hadda fiilo kale soo qaado computerka sidii markii fast ethernetkiisa switchka fast ethernet 0/2 oo inka ka bannaan dhinaca waan soo dhamaynay dhinacan ayaa inoo haray marka isagana waxa weeyaan dhinacan inoo haray marka switchka ayaynu ku qabanaynaa meesha doontaad gashan kartaa dhinaca kale routerha isagana aynu eegno inta interface ee u bannaan labadan sare imika uma baahnin labadan baynu isticmaalaynaa insha Allah mid ka mid ah 0/0 dhinacan fiiladii green ayay noqotay ama cagaar dhinacan laakiin weli waa casaan ama waa guduud sababtu waxa weeyaan routerhan ayaa interface-kiisu dansan yahay si aynu iyadana u barano crossover oo kale tusaale ahaan waxaynu soo qaadanaynaa router kale oo lamida kii aynu imika haysanay fiilada
iyada waxay noqonaysaa crossover. hadda waxay noo bannaan 0/1 waxaynu soo isticmaalnay 0/0 kan, laakiin labadiisii interface way inoo bannaan yihiin, markaa kaynu rabno ayaynu ku xidhanaynaa. marka sidaad ujeedaan labada router waxaa u dhexeeya fiilo crossovera, dhinacanina waxa weeyaan straight through. haddaynu guidelinekii ku noqono router to router, laba router waxaa lagu xidhayaa waa crossover. qalabka dambe oo dhami iyagu way fahmaan fiilada, marka iyagaa kala bedesha oo dhib badan sidii beriga hore ma laha. inagu laakiin sidii baynu isticmaalaynaa crossover iyo straight through ay loo isticmaali jiray. maxaa marka inoo hadhay? ciwaankii inaynu gelino, note haddaynu u baahana inaynu ku samaysano. sidee baa loo sameeyaa? magaca sida looga bedelayo. intaas waa fiilooyinkii. dhinacan casaanka waa sidan hore usoo sheegnay, interfaceyada ayaa dansan, waynu daari doonaa insha allah. hadda waxaan u baahanay markaa inaynu magaca haddaad doonto ka bedeli kartaa, gudahana waa laga bedelaa, dibaddana waad ka bedeli kartaa. haddii aad riixdid waad ka bedeli kartaa. halkan oo kale bc2 waad ka dhigi kartaa, ama magaca doonta aad u bixin kartaa sida aad markaa jeceshahay. kana waa sidii select bc1 bc2. ruutaha laftiisa waa la mid, waad bedeli kartaa magaciisa. halkan waad ka bedeli kartaa, gudahana waad ka bedeli kartaa. r1 kana waxaan u bixin karnaa r2. note markaad rabtid inaad qaadatid dhinacan midigta oo kale soo qaadanaysaa, meesha doontaad dhigan kartaa. waxaad ku qori kartaa wax allaale waxaad doonaysid ayaad ku qori kartaa halkaas. meesha marka aad rabtid baad dhigi kartaa ciwaan. haddii aad rabtid inaad tusaale ahaan aad dusha aad ka xasuusnaatid oo kale, sidaasaad ugu qoran kartaa si aanad hadhowto u ilaawin. waa sida noodka loo qorto, inaanad ilaawin oo kale aad rabtid inaad ku qoratid. hadda waxaan u baahanahay ciwaanada inaynu gelgelino. computerkan bal gudihiisa aynu furno. halkan waxay jeclo optiono fara badan. halkaa desktopka tegaysaa. sidaad ujeedaanba waxyaabo badan oo loo baahan yahay baa ku jira, sida command linekii caadiga ahaa. halkan baa IP addresska laga geliyaa marka, waad ka gelinaysaa ciwaankii aad rabtay inaad markaa siisid. subnet maskiga automatically buu soo qaadanayaa. default gatewaygu waa muhiim in loo sheego ruutaha default gatewayga u ah. marka ruutahaas aynu hadhowto 254 baynu siinaynaa. marka 192.168.1.254 ciwaanka doontaad siin kartaa. DNS-ka waad isna halkan baad ka siin kartaa. imika uma baahnin ciwaanka wax kaloo loo siiyaa DHCP oo uu ka dooranayo meel lagu diyaariyey. intaasi nagu filan. hadda ciwaankii waynu galinay, default gatewaygiina waanu sheegnay. haddii aynu command linekiisi tagno, tusaale ahaan aynu ipconfig nidhaahno, ciwaankaynu hadda gelinay oo kaynoo soo baxay. waad xidhi kartaa, micnaheedu maaha waa computerkii dhammaaba demisay. kana sidii select desktop IP configuration 192.168.1.2. ciwaan hore hadduu jiro wuu inaga diidayaa. marka 2 baynu siinaynaa isaga sidii select subnet maskiga. isagaa soo qaadanaya. default gatewaygu wuxuu noqonayaa kii the same. default gatewaygu wuxuu noqonayaa same 254. waa same network. switchka hadda uma baahnin in aynu configuration ku samayno ama aynu wax ka bedbedelno. ruutaha ayaynu toos u gelaynaa. 3 option baa halkan yaalla. physicalkii oo ah dhinaca laga damiyo laga daaro. halkan waxaa la geliyaa mowjallada aad u baahan tahay. haddaad serial aad rabtay oo kale tusaale ahaan, waad qaadaysaa, waad ku haynaysaa ilaa aad dul geynaysid meeshii aad markaa u baahan tahay. waa markaad serial u baahan tahay. hadda inagama yeelayo maadaama uu daaran yahay
routuhu ma aqbalayo sida caadiga markaa uma baahnin baa imika serial inaynu gelino. Config waa xoogay configuration baad ka samaynaysaa, laakiin sida fiican waa inaad command line ka tagtid. marka ugu horeysa ay routuhu soo daarmo wuxuu ku weydiinayaa inaad configuration rabtid inaad samaysid, markaa no baad dhahaysaa. haddii kale wuxuu kula gelayaa hawl aad u badan. no baad dhahaysaa. halkan marka aad joogtid commandiga ugu horeeya ee lagu galo waa enable kaas ayaad enter dhahaysaa. halkan waxa aad ka arki kartaa haddaad show aad isticmaashid ereyga show wax basiga, laakiin configurationkii kama samayn kartid halkan. si markaa imika waxaynu rabnay inaynu IP address u samayno, waa inaynu galnaa configurationka ama global mode configure ayaa loo soo gaabiyey terminal config t oo kaliya la qori karaa. configure terminal haddaad doonto waad soo gaabsan kartaa. config t wuu ka aqbalayaa. interfaceka uu fiilada ay noogu xidhan tahay aynu rabno laba interface buu leeyahay routahani. ta aad doonaysid ina aad gelishid ciwaanka waxa weeyaan waa fast ethernet 0/0. waxaan dhahaynaa interface fast ethernet oo f baa loo soo gaabsan karaa 0/0 enter. halkan ayaynu ciwaanka ka gelin karnaa IP address 192.168.1.254 space subnet maskiga waa qasab inaad gelisid 255.255.0 enter. ciwaan baynu hadda u samaynay. si marka uu inoogu daarmo waa inaanu isticmaalnaa no shut. markastaba ha ilaawin. interfacekii up buu inoo noqday, hadda green buu noqday. switchku xoogay bay qaadanaysaa. magaca haddaynu rabno inaan ka bedelno halkan waanu ka baxaynaa exit. hadda global mode baynu joognaa. waxaan dhahaynaa hostname, saasaa looga bedelaa magaca doontaad u bixinaysa. marka r1 ayaynu la soo baxnay. hadda sidaad ujeedaan halkan router buu ahaa by default. hadda laakiin magacii aynu gashanay ayaa soo baxay. networkan hadda waa inoo dhisan yahay dhinacani. labada router sidii silaag ayuun baad ku noqonaysaa interface f0/1 galno gudaha u galno IP address 192.168.2.254 subnet mask 255 no shut. sidii silaag interfacekaasina waa up exit aynu ka soo baxno. marka weli fiiladii waa guduud, sababtoo routahan ayaa u baahan interfaceka in la daaro. hadda sidii caadiga ahayd no baynu dhahaynaa enable oo loo soo gaabsan karo n. configure terminal oo loo soo gaabsan karo conf t. interface f0/1 IP address 192.168.2.1 subnet mask. ciwaanka allaale ciwaanka doontaad siisan kartaa, laakiin inay isku network ahaadaan baa laasim ah. no shut. haddaynu iska yarayno hadda waa kana labada router way daaran yihiin. networkina wuu daarmay. waxaynu ku ogaan karnaa haddaba inay isgaari karaan oo ay xidhiidh wada samayn karaan device-yada meesha inoo yaala.
dhinacan midigta haddaynu dhaqaaqno halkan waxaa yaala envelope aynu ku samayn karno inaynu ku hubino connectivity-ga. Successful micnaha way isgaari karaan, waa ping. mar kale clientigan ma gaari karaa ruutaha? dabcan haa, ruutahan ma gaari karaa, isna waa hada fail buu dhahay, laakiin let me try, aynu mar kale tijaabino. wakaa successful. sida ugu fiicani waa in command line-ka la galo oo la ping gareeyo sidii caadiga ahayd destinationka ama meesha aad rabtid in aad ping garaysid. hadda waxaan doonaynaa PC1 inaynu soo ping garayno. ciwaankiisu ahaa 192.168.1.1 192.1.1 wakaasaa waynu gaari. ruutaheena dabcan waynu gaari karnaa 254. haddii aad doonaysid in aad wax iska tirtirtid ama masaxdid, waxa aad u baahan tahay waa calaamadda isku tallaabta. meesha aad dulgeysid ayay kaa masaxaysaa. si qalada haddii ay wax kaaga masaxmaan, undo ayaa taabanaysaa oo ku soo celinaysaa wixii. escape ayaa taabanaysaa si ay calaamaddaas isku tallaabtika uga baxdo. markaa fiiladii aad doonaysay ayaad markaas soo qaadanaysaa oo aad barteedii ku xidhi aad ugu tala gashay. marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina. intaa waxaan kusoo koobaynaa casharkii koowaad ee sida loo isticmaalo packet tracerka, intiisii muhiimka ahayd. qofka ardayga wax looga baahan yahay marka isagu inuu practice fara badan uu sii sameeyo, meelo fara badan uu sii galgalo, waxyaabo badan uu la soo baxo oo isagu markaa uu tijaabiyo